السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ظهر وناكسن دغستيال كوسو دوادا وركا ظهور idaacada Kismaayo codka Jubbaland qodobada warka ظهور kuwada ugu waaweyn oo halkan idinku soo gudbin doonana waxa kamid ah dawlad goboleedka Jubbaland oo shuruud ku xirtay ka qaybgalka shir uu dhawaan ku baaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ku baaqay in degdeg lagu laabto wada hadallada doorashada iyo maamulka magaalada Dhuusamareeb oo cambaariyay talaabo ay qaadeen ciidamada ilaalada wadooyinka magaaladaasi ergeyga ka socda dawladda Qatar oo maanta kulamo la leh dawladda federaalka iyo midowga musharaxiinta Soomaaliya oo diyaar garowga munaasabadda Ciidul Fidriga oo si weyn looga dareemayo suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo. akhbaraadka dibadda kuwada ugu waaweyn waxa kamid ah Mareykanka oo shaaca ka qaaday in uu dalka Suudaan ku diri doono marka wafdi heer sare ahi oo ka shaqeynaya xiriirka labadaasi dal oo maalmihii dambe xumaaday. dawladda Itoobiya oo argagixiso u aqoonsatay ururada TPLF iyo OLF. waa kuma warwageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba radio Kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan وأحد تاريخنا waxay ku beegan tahay labada bisha shanaad ee sanadka 2021 qodobadaasi waxay hayeen qodobadii warka duhur ugu waaweynaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan iyaga intaasi ka faahfaahsan duhurnimadana waxa idin waramaya aniga Cabdilmajiid Cabbaas aadan fantastic. dawlad goboleedka Jubbaland ayaa shuruud ku xirtay ka qaybgalka shir uu dhawaan markaa ku baaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta injineer Maxamed Xuseen Roble ka oo markaa xalay uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe ay kulan isugu imaan doonaan oo lagu dhameystirayo heshiiskii 17 September sanadkii hore ay dhinacyadu wada gaareen sidii loo meel marin lahaa. Maxamed Ibrahim Karaama hayno si dhameystiro. iyadoo madaxweynaha mudxuleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo khudbadii uu shalay ka horjeeday golaha shacbiga uu ku cadeeyay in howlaha doorashooyinka iyo amniga uu ku wareejiyay ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa arintaasi durba ka hadlay dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. markaan eegno wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Cabdi Xuseen ayaa sheegay in shir walba oo lagu baaqo oo laga hadlay arrimaha doorashooyinka aysan ka soo qayb gali doonin ilaa ammaanka guud ee dalka laga wareejiyo madaxweynaha loona wareejiyo ra'iisul wasaaraha. wasiirka warfaafinta ee Jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in muhiim ay tahay in amniga guud ee caasimadda ay guud ahaan dalkaba lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Roble. sidoo kale waxa uu meesha ka saaray in aysan ka soo qayb gali doonin shir walba iyo sidoo kale wax walba oo laga hadlayo xaaladaha doorashooyinka ilaa amniga guud ee dalka uu la wareegayo ra'iisul wasaare Roble. shalay baarlamaanka ay ansixiyeen waxaa soo dhaweeyay safiirada ugu sasareeya dawladaha taageera Soomaaliya iyo sidoo kale madaxdii hore ee dalka uu ka mid yahay Shariif Sheekh Axmed. dhanka kale xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa markaa ku baaqay in degdeg loogu laabto wada hadallada doorashada Soomaaliya xilli shalay baarlamaanka Soomaaliya ay dib u laaleen muddo kordhin loo sameeyay hay'adaha dawladda iyo madaxweynaha. Maxamuud Saciid Axmed qodobkan hayno faahfaahiyo. Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyay go'aankii ay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya shalay ku ansixiyeen sharciga qaaska ee doorashooyinka federaalka iyo in dib loogu laabto nidaamkii doorashada ee lagu heshiiyay bishii September 17keedii ee sanadkii hore 2020. afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay inuu Antonio Guterres ugu baaqay dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliyeed inay sida ugu dhaqsaha badan u bilaabaan wada xaajoodka iyo in la qabto doorashooyin daahfuran oo aan dib u dhac dheeraad ah lahayn. waxa uu xusay muhiimadda uu heshiiskaas afgaradka leh u yeelan karo deganaanshaha Soomaaliya. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay shalay laaleen muddo kordhintii 2 sano ahayd ee ay horay ugu codeeyeen waxaana mar kale ay dib ugu codeeyeen in la sii ambaqaado heshiiskii nidaamka doorashooyinka dadban ee ay madaxweynayaasha dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada saxiixeen bishii September 17keedii sanadkii 2020.
isla wararkii gudaha ee Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaaye ergeyga ka socda dawladda Qatar ayaa maanta kulamo la qaatay dawladda federaalka iyo midowga musharaxiinta isagoo la sheegay in maalmaha soo socdana uu sii wadi doono kulamadaasi. Cabdifataax Ali Maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya. ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Qatar u qaabilsan xalinta khilaafaadka Dr. Mutlaq Al-Qaxdaani oo gaaray Muqdisho ayaa maanta kulamo la yeeshay xubno ka tirsan midowga musharaxiinta. Dr. Al-Qaxdaani ayaa kulanka ugu horeeyay waxa uu la yeeshay midowga musharaxiinta isagoona ka dhacay hotel Ducaale iyagoona ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadda dalka iyo khilaafaadka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka. sidoo kale ergeyga ka socda dawladda Qatar ayaa kulamo kale la yeelanaya mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug isla markaana ka arrinsanaya xaaladda cakiran ee taagan. dawladda Qatar ayaa doonaysa inay beesha caalamku iyo siyaasiyiinta Soomaalida u muujiso inaysan taageero u ahayn madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loona arko inay dhexdhexaad tahay. Dr. Mutlaq Al-Qaxdaani ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda Qatar u qaabilsan dhexdhexaadinta xalinta khilaafaadka ayaa shalay soo gaaray caasimadda dalka isagana kulan la qaatay wasiiru dawlaha arrimaha dibadda xukuumadda xilgaarsiinta Balal Maxamed Cusmaan. kulanka ayaa intii lagu guda jiray looga hadlay siyaabaha lagu taageeri karayo xukuumadda federaalka si ay u gudato waajibaadkeeda qaran ee saldhig waa nabadda iyo degnaanshaha guud ahaan Soomaaliya iyo gogol xaaridda doorashooyinka madaxtinimo iyo midka baarlamaaniga. ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Qatar u qaabilsan dhexdhexaadinta xalinta khilaafaadka Dr. Mutlaq Al-Qaxdaani ayaa lagu wadaa inuu sii wadi doono kulamada lagu raadinayo xalinta khilaafaadka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya. maamulka magaalada Dhuusamareeb ayaa cambaareeyay tallaabo ay qaadeen ciidamada ilaalada wadooyinka magaaladaasi. Cabdirasaaq Maxamed Sheekh Siraad qodobkan haynoo faahfaahiyo. maamulka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa cambaareeyay dhisme ciidamada ilaalada wadooyinka ee Galmudug ay ka dhex dhisteen jidka ugu weyn ee halbowlaha u ah xaafadda Dayax ee magaalada Dhuusamareeb. afhayeenka maamulka magaalada Dhuusamareeb Bashiir Maxamed Salaad Sanka ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid ka fog sharciga iyo sumadda ciidamo isla markaana ay xadgudub ku tahay nidaamka wadooyinka. wararka laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in dadweynaha isku soo baxay ay joojiyeen shaqadii dhismaha ahayd ee ka socotay wadada dhexdeeda ee saldhigga booliiska iyo xarunta bangiga Dhuusamareeb halkaasi oo ay deegaan cusub ka hirgeliyeen ciidamada ilaalada wadooyinka Galmudug. jidka ay ciidamada dhismaha ka bilaabeen ayaa u dhaxeeya saldhigga booliiska iyo xarunta bangiga waxaana muddo dheer u ahaa kan ugu hagaagsan ee la adeegsado xilliyada roobka uu jaro isku socodka xaafadaha Dayax. waxaase bil ka hor jidkani dhisme geerish ah ka sameeyay ciidamada ilaalada wadooyinka iyadoo ugu dambeyn maanta u bedelay mid rasmi ah oo ku bilaabanaya dhismaha xafiisyo iyo darbi weyn oo halkaasi laga dhisayo. u diyaargarowga munaasabadda Ciidul Fitriga ayaa si weyn looga dareemayaa suuqyada waaweyn ee Kismaayo. Raaxo Maxamed Cabdi haynoo faahfaahiso. suuqa weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa diyaargarowga Ciidul Fitriga waxaana suuqa soo buux dhaafshay dadka u diyaargaroobaya munaasabadda ciidda fooda nagu soo haysa. maanta aan booqasho ku tagay suuqa dharka ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa laga arkayay dad badan oo suuqa ka iibsanaya dharkii ay ku ciidi lahaayeen. qaar ka mid ah dadka ka adeeganaya suuqa magaalada Kismaayo oo nala hadlay ayaa ka warbixiyay sida ay uga diyaargaroobayaan munaasabadda ciidda. waxaa deganahay magaalada Kismaayo waxaa ka mid ah shacabka ku nool magaalada run ahaantii dhar ciidan magaalada u soo raadsanay jawiga ciidana waa laga dareemayaa magaalada wax qiimo kacsaad u sii badan ma jiro qiimaha aad u fiican yahay. roonkan waxaan leenahay soon aad u buraaqaysan insha Allah waxaan rajaynayaa ciidda si fiican inuu ciidno insha Allah ilaahay duuna gaarsiiyo. wax sare u kac ma jiro qiimaha aad u fiican yahay shay walba iidana ka fiican saan rajaynayno ma sha Allah dhib ma jiro. waxa u imaanay suuqa inaan micnaha ilmaheena aan ka faraxsiino maalin yoom farxad maadaama ay tahay 10kii dambe tahay Ramadaan
إن شاء الله تعالى وحن جعلنا هاي إيدنا إنا كوجارنا برواقي برارة إن شاء الله تعالى إلهينا وحن كبرينا نبت كل يوم يبرواقو آد لما سوكوبي كرا فرحة مقالة كم وقتادي قبل هذا معلم كويه ووجد دايما لنا سوق دقاقيسة يسوي بدلي ما شاء الله ووجد ضد كتير ضوضاء يديسنايو رق الدمر عيال يعيشوا maxamed muuse xasan oo ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Kismaayo ayaa inooga warbixiyay dhaqdhaqaaqa suuq iyo sida dadka ay ugu hawlan yihiin gadashada dharka ciida waxaan ka ganacsanaa dharka suuqa waratada Kismaayo suuq walaal zaxmadiisa aad u kacsan tahay maadaama ay ciid soo dhowdahay dadkana aad wax u gadanayaan sicirada oo magaalkana aad u kacsan tahay magaalkana waxa ka dareemaysaa sida iid dadka u shaqeysanayaan dadka iidina waxa xoogaa sare kacay laga dareemay maadaama corona uu jiro dalka corona uu hareeyay macaamiisha wallahi billahi wala macaamilna macaamiisha dadkii hore way fahmi karaan maadaama corona uu jiro dadkii kalena anaga la tacaamulno wixii kale halkaad warkaasi kala socotaan waa idaacadda Kismaayo codka Jubbaland kordhow waxay noo soo socdo qodobada dibadda oo aad u xiiso badan balse inta aanu guda galin waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha ee warka duhur qasaalaha inoo soo koobo aad baad u mahadsantahay Cabdi Majiid دور ونكسر لقيسيال صاحب يالكسر لبعض حبنت عيالها ورك دور وحنا كسر قادنا كل ما ضمانت لقى عيار بريمير ليغا نيوكاسل يونايتد أرسنال لحد ما خرج معي عيار دوتا مانشستر يونايتد ليفربول لبعض يبركها بين ما عيار دونا توتام يلوف شفل يونايتد واشن ساعي روبي أو عوا ريفل نكها يولي إسبين هدي إنه عندنا ريال بلال يولي ريال باتيسا يا سيرك دونا ساعة دمركها شنطة قالوا ما برليال يولي كتب وحاول عيار دونا تضوي قدر شنو منطقة قرناطة يولي كاديس واسقال كي قدر صدقة فلنزي إلى برشلونة وعاول لح ساعة بينما إنك هاي سريعة ترياني كل ما يلعيانية لازي إلى جنوا وسجال ساعة بر ما أنت لحظة مرة بلاي إلى فرنسا يسار كدورة لحظة مرة مسدوا كلا نابولي إلى كاليدا يا وضعيار دون الصورة إلى أتلانتا أو أي جوش هذا كحرنتها إن لقى بدي أتلانتا واحد كحرنتها إنه أتكاتو أو لقى أتكات أتلانتا إنه هو جول سوريال كإنتر ميلان هذه لاكس أتلانتا أتكاتو مقول سنوسا إدنيسي إلى يوفنتوس سجال كابين وضعيار دوننا سامبدوري إلى روما واحد يسار كدورنا عاوة شنسا أفرتني شنطة حبيتي عيار ورك دورنا صاحبيال ويجي أنت عبد المجيد إيه قيمة ورك نقهر aad iyo aad ayuu mahadsan yahay qasaal oo inoo soo koobiyo xubinta ciyaaraha ee warka duhur markana haddii aynu fiirino faahfaahinta qodobka dibadda senator Christopher iyo waliba Christopher Holland oo ah markaa xubno ka ah guddiga xiriirida markaasi dibadda ee aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa la filayaa in maalinta Isniinta ay booqasho rasmi ah ku tagaan caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum wafdigaasi oo booqasho 3 maalmood ku joogi doona Suudaan ayaa waxa uu markaa qorshahoodu yahay sidii loo xoojin lahaa qaabka shaqo ee lagu xoojinayo iskaashiga xiriirada Suudaan iyo Mareykanka Strengthening Cooperation waxa afka qalaad lagu yiraahdo wafdiga Mareykankana waxa uu markaa qorsheysan in ay la kulmaan madaxa golaha kumeel gaarka ee talada haya ee dalka Suudaan ninka lagu magacaabo General Abdul Fattah Burhani iyo ra'iisul wasaare Abdullah Hamdouk wasiirka cadaaladda Nasruddin Abdullah Barri iyo wasiirka waraabka ee Suudaan Professor Yasir Abbas labada dhinac ayaa waxay kale markaa ka wada hadli doonaan horumaradii ugu dambeeyay ee xiisadda ka taagneed xuduudda Suudaan iyo Ethiopia laga sameeyay dhinaca kale senator Christopher Coons senator iyo waliba Christopher Holland iyo xubno ka ah guddiga xiriirada dibadda ee aqalka sare ee Mareykanka waxa la filayaa inay booqdaan xerada qaxootiga ee Rakaba camp lagu magacaabo ah qaxootiga Ethiopiaanka ugu badan ee soo magangalay gobolka Gardaaf ee bariga dalka Suudaan oo ay halkaasi xaalad nolol xumo ay ku haysato balse qorshahooda ugu weyn ee xilligan la aaminsan yahay ee halkaasi u tagayaan waa sidii xiriirka Suudaan iyo Mareykanka markaa dib ugu soo noqon lahaa ugu dambeyntiina dawladda Ethiopia ayaa liiska argagixisada ku dartay ururada TPLF iyo OLF waxaana go'aankan laga soo saaray shirkii golaha wasiirada uu shir gudoomiyay
ra-iisul wasaare doctor abiy axmed cali maamulka ra-iisul wasaare abiy axmed cali ayaa dabayaaqadii sanadkii hore weerar ku qaaday gobolka tigreega halkaasi oo saldhig u ahay t b l f ta oo hore markaa usoo xukuntay dalka etoobiya golaha wasiirada ayaa sheegay in sidoo kale o l f shine loo aqoonsaday markaa argagixiso kadib markii sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka weeraro dhowr ah ay ku qaadeen meelo kala duwan kuwaasi oo lagu bartilmaameysaday dad shacab ah iyo kaabayaasha bulshada labadii sano ee lasoo dhaafay oo sare loo qaaday soo jeedinta golaha wasiirada ayaa ansax noqon doonta marka golaha baarlamaanka etoobiya ay meel mariyaan hindisahan oo aan la ogeyn sida ay ku meel marin doonaan warbaahinta fana ayaa soo warisay in bayaanka soo baxay ee xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu sheegay in labadan kooxood ay yihiin qaran dumis isla markaana ay soo shaqeeyeen sidii argagixisada oo kale ay xilligan uga howlgalaan halkaasi waa sida lagu xusay bayaanka xafiiska ra-iisul wasaare doctor abiy axmed cali laga soo saaray sidoo kale dowladda etoobiya waxaay markaa ku guda jirtaa howlgallada ka dhanka ah ola oo ah koox militari oo ka goosatay jabhadda xoreynta oromada oo inta badan markaa ka howlgasha gobolka oromiya waxaa kaloo lagu eedeeyey inay dileen ugu yaraan 15 qof oo rayid ah hase yeeshee dhinacooda waa ay beeniyeen in ay dad shacab ah dileen xiisadda ayaana laga yaabaa in tani ay sare usii qaado xilli doctor abiy uu ku dhawaaqay in la wado howlgalka sarraynta sharciga ee toddobaadka loogu magacdaray oo dib loo soo celin doono guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warka duhur aad kala socoteen idaacadda kismaayo codka jubbaland duhurnimada waa naga intaa tan iyo kulankayga dambe aniga asxaabta kale ee warkaygala qayb gasho isku duuban nabadgelyo